qof aan kiisba ka gelin korka looma saareen kabaalada jacaylkii nafsi kaba uma xidhan kacankii 21 Oktoobar ee Soomaaliya ayaa riwaayadda iyo heestii la keenaba ku shaabaday jiray kacaandiid laakiin kililka uu ka duwan yahay oo koobta wax kama eegaan baraha bulshada bay ku kooban tahay aragtidooda yacni Facebook maxaa ku yaal kurka wada dheeraadisay u qoransanayeen maamulka ay jigjiga xarunta u tahay iskama jiraan heesaha lagu jiiray jacayl ahaan bay isaga dhageystaan maanta waxaan idin sidnaa hees sarbeeb caashaqa oo maamulka cusub u cadaynayso inuu ka raystay caburintii iyo ciqaabtii uu ku hayay dib u curashadii la cagaajiyay kullugu ay haddaa tiri ka kaaftoomay caashaqa heesta waxay jawaab u tahay heestii Jaale Faysal Munir kullugu ay jacaylkii hore oo ka turjumaysay nin ay ka jajabtay oo moodo inuu jeel dhaxyaal wuxuu yiri kullugu ay kelmadahan kalgacayl u oran jiray kullugu ay kalsoonidan ka qabay koolkii hore xididta kooxda midnimo qaran ayaa u jawaabto waxay tiri iyadoo ku doodaysa inayna u darsanin dib u curashadii la didiyay jabkooduna ay ku dirsatay ka aflaxay kadeedkan 50 sano ku nool ka aflaxay kolkaan bari kambaal kaaga taagna kullugu ay haddaa tiri ka bogsaday lorkiisii وعجاز كانوا ذيك الرحبة هي ذيك يوهيس ككيس ككلبها كون يكويه يو فنانة دبشي دبولت دبس ككوس شرتي دب ككو أفوقتي وبح دارتشو
kaaga taagnaa ka aflaxay kadeedkan konton sano ku noolaa ka aflaxay kolkaan bari kambaalkaaga taagnaa qofan kiisba kaa gelin korkaa looma saare kabaalada jacaylkiyo nafsii kabaha uma xidhan iskaalmaysigeeni ayuunbaan ka bowdoon keliinima ka doorbiday qofan kiisba kaa gelin korkaa looma saare kabaalada jacaylkiyo nafsii kabaha uma xidhan